بسم الله الرحمن الرحيم dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni toddobaadlaha faalada toddobaadka oo aad ka dhegeysataan aaladda warbaahineed ee Sahal Media Network Citibankiiba mar dhegeystayaal faaladeena toddobaadka waxa aan ku soo qaadanaynaa faala ku saabsan waxa mucaaradka Soomaaliya ka hortaagan in ay ku midoobaan xisbi ama urur iyadoo dalka Soomaaliya uu isku diyaarinayo doorashooyin siyaasadeed oo muhiim ah sanadka aynu ku jirno iyo midka soo socda waxa si isa soo taraysa loo hadal hayaa kaalinta ay mucaaradku ku yeelan doonaan tartanka siyaasadeed gaar ahaan loolanka xilka madaxtinimada ee dalka oo uu hadda ku fadhiyo madaxweyne Dr. Xasan Sheekh Maxamuud inkasta oo mucaarad ballaaran uu ka jiro gudaha dalka iyo qurbaha intaba waxaa shir 3 maalmood uu uga socday xubnaha mucaaradka intooda badan Hotel Jazeera ee magaalada Muqdisho haddana weli lama arag midow rasmi ah oo ka dhaxeeya si ay uga hortagaan ama ula tartamaan awoodda xisbiga talada haya mucaaradka Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin xilal sare ka soo qabtay dalka xubno baarlamaanadii hore ka mid ahaa iyo kuwa hadda baarlamaanka 11aad ku jira ururo madani ah iyo kooxo isbedel doon ah intaba ayaa wajahaya caqabado badan oo sabab u noqday in aysan weli yeelan xisbi ama urur midaya oo leh aragti siyaasadeed oo cad haddaba dhegeystayaal faaladeena waxa aan ku dul istaagaynaa dhowr qodob oo ka mid ah kuwa caqabada ku ah in la helo mucaarad midaysan kala fogaansho fikradeed iyo dana shakhsiyadeed oo ka dhex jira mucaaradka siyaasiyiinta mucaaradka ah waxay u muuqdaan kuwa ay kala duwan yihiin fikradaha ay qabaan taasoo ka tarjumaysa kala duwanaanshaha aragtidooda ku saabsan qaabka dowladda nidaamka doorashada iyo maamulka kheyraadka loo maamulayo waxa kale oo jirta in dana gaar ah iyo damacyo siyaasadeed ay hortaagan yihiin in la helo hogaamiye mucaarad oo lagu midaysan yahay qof kasta wuxuu rabaa inuu noqdo musharaxa ugu weyn ama codka ugu dambeeya ee mucaaradka ayuu yiri mid ka mid ah falaqeeyayaasha siyaasadda gudaha isagoo intaa ku daray in aysan jirin kalsooni ku filan oo ka dhaxaysa xubnaha mucaaradka caqabadaha ay wataan qabyaaladda iyo deegaanku siyaasadda Soomaaliya weli waxa ay aad ugu tiirsan tahay nidaamka beelaha iyo deegaanka taasi waxay keentay in mucaaradka badankood ay taageero ka helaan deegaanadooda oo kaliya kala qaybsanaanta ku salaysan qabiilka ayaa si weyn u yareynaysa fursadda mideynta iyo awoodda siyaasadeed ee mucaaradka oo dhab ah mid kale oo caqabad weyn ah waa la'aanta dhaqaale joogto ah iyo kaabayaal xisbi oo shaqeynaya in badan oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah ma haystaan miisaaniyad ku filan oo ay ku dhisaan urur siyaasadeed ku abaabulaan taageerayaal ama u sameeyaan olole doorasho sidaa darteed abaabulkooda wuxuu noqonayaa mid goosgoos ah oo aan xasiloonayn cadaadis siyaasadeed iyo amni darro wararka qaar waxay sheegayaan in mucaaradku ay dareemayaan cabsi laga qabo in haddii ay abaabulaan banaanbaxyo iyo in ay fagaare isugu keenaan taageerayaashooda ay wajihi karaan cadaadis siyaasadeed xarig dil iyo eedeemo musuq ah oo lagu carqaladeynayo dhaqdhaqaaqooda ayaga iyo xubnahooda
waxaa sidoo kale jirta xaalad amni darro oo ka jirta meelo badan oo dalka ka mid ah taasoo caqabad ku noqotay abaabulka banaanbaxyo siyaasadeed oo furan oo ay mucaaradku ka sameeyaan dalka oo dhan. haddaba gunaanadka faallada toddobaadka, haddii mucaaradka soomaaliyeed doonayaan inay yeeshaan saameyn muuqata oo ay kula loolamaan madaxweynaha kursiga madaxtinimada fadhiya, waxay tahay inay qaadaan tallaabooyinkan muhiimka ah ee soo socda: inay dhisaan urur ama xisbi rasmi ah oo sharciyeysan, lehna hogaamin midaysan iyo aragti qaran, inay ka gudbaan qabyaaladda iyo danaha gaarka ah, inay shacabka usoo bandhigaan barnaamij siyaasadeed oo cad oo ka duwan midka xukuumadda maanta jirta ay wadato, inay muujiyaan diyaargarow muuqda oo sharciyeysan si ay uga qayb galaan doorashooyinka soo socda si hufan, inay ka fogaadaan wax walba oo carqaladeyn kara dagaalka jihaadka ah ee ka socda dalka oo ay hogaaminayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka. ugu dambeyntii, doorashada soo socota waxay noqon doontaa tijaabo dhab ah oo lagu cabiri doono awoodda mucaaradka haddiiba ay ka faa'iidaystaan waqtiyada harsan iyo talooyinka ay soo jeediyaan shacabka Soomaaliyeed. haddii kale, madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu heli karaa fursad kale oo uu dib ugu soo laabto xafiiska iyo xukunka dalka isaga oo aan la kulmin wax tartan adag ah. dhegeystayaal, intaa waxaa noogu eg faalladeennii toddobaadka. haddaba dhegeystayaal, si aad u hesho wararka iyo faallooyinka waxtarka u leh dhismaha qaranka Soomaaliyeed ee halkan aan ka baahino, fadlan ku soo xirmo baraha aan ku leenahay social mediada sida Facebooka iyo YouTubeka iyo TikToka. waa bahda Sahal Media Network oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.